بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان دين سلام يا المادر ريال سلام آد وقيمة بدن بان صوت ريال سلام كبعدي waxaan doonayaa ka hadlo arrinta Soomaaliya Italiano iyo Somaliland iyo sida wax yihiin. Soomaali Italiano waa gaari iyo darawal laba ah. labada darawal way iska nasiyaan inta kale gaariguna waa inta kale. Soomaali Italiano qabayl badan baa ku nool oo deegaamo badan kala duwan leh oo kala fara badan oo kala deegaana oo badan haba kala fara badnaadaan gebigooda isku wada duubo labada darawal ee wada waa masheertino number 1 iyo mareexano number 2 in alla inta kale waa gaariga la wado ee kolba dhinac loo jihaynayo ee shookaanta la hayo ee isagu soconaya waana cadeynaya inay sidaa tahay kay ayagu wataan iyo ayagunbaa wax wada xitaa ka kale ummadda kale waa mid ay wataan iyagu ay kredit gareeyeen ama waa kingmakers mararkay doonaan daa dabiis wax ka haga inta badan laakiin safka hore taagayinba tusaale waa ilaa intii gobonimada la qaatay maxamed siyaad barrihi wax inqilaabay iyo kuu ka inqilaabay oo ayaga ahay maxamed siyaad barrana mareexaan buu ahaa cabdirashiid cali sarmaarko uu ka inqilaabayna masheerteen buu ahaa 78 kii dambe tijaabinayay musiyaad bar ka inqilaabaana wuxuu ahaa uun haddii alla kuu roon yahay cirre iyo cabdullaahi yuusuf xilligii burburka halkaa waxaynu ka dirnay balligubadlo islam ka dirtay laba sarkaal oo sarsare ilaahay u naxariistay jenaraal maxamed faarax aydiid iyo korneyl axmed cumar jees oo nool nidaam bay la dagaalamayeen qabiil lama dagaalamin nidaam bay la dagaalamayeen oo nidaamkii maxamed siyaad barre la dagaalamayeen faashista ahaa ee dhigyacabka ee aqoonta baabiye waddanka baabiye maanta dagaalku way ku guuleysteen oo ka dhex tooseen Soomaaliya caasimaday galeen oo hareeraheeday galeen oo meel walba way galeen dagaalkii oo soconaya oo ay ahayd kuwii guuleystay inay maamulaan waddanka oo dadka isugu yeedhaan oo la tashado markii laga saaray siyaad barre la naafiyey ayay nimankii ma jeerteen oo maxamed abshir muuse aan ka xusi karo in abshir haama iyo group noocaas tima isugu xidhan cali mahdi bay keeneen ayaga tima isugu xidhan hawiye harkahay maalintaa dhigeen baa ilaa maanta shaqaynaya jawigii iyo nidaamkii dagaalku lahaa oo dhan bay bedeleen taariikhdii dagaalku lahaa bay bedeleen jabhadii dagaalka ku naafiyey siyaad barre bedeleen nimankaasi intii burburka ka dambeysay wax alla wixii dowlad ka jirtay ee halkaa ka samaysantay taag daran ayagunbaa isbedelayay 4.5 baa la yidhi iyagaa keenay 4.5ka daarood bay wax ku qaataan daarood kale wax ma ogola cidda wax qaata waa iyaga mar walba labadoodun baa isbedela bal fiirsada mar baa cali khaliif la siiyey cartoo cali khaliifna Somaliland buu ku helay Somalilandnimo ayagaana ka horiiba ka tuuray meesha oo sheegtay wuxuu sheegtay waxa la wixii dawladda casir ra'iisul wasaare kan kale madaxweyne waa ma sheertay mareexaan iskala ma jirto ummadda kale waa cid ay iska leeyihiin arigooda tusaale maamul goboleedyaal laga sameeyay koonfur 5 maamul goboleed inay maflay ahaayeen labadaa iyagu ay base gareysteen ee base-ka u ahaa haddii la ku ay credit gareeyeen ee ay abuureen Puntland iyo Jubbaland oo iyagu ay abuureen oo halkay kaga duulayaan kuwa kale base-ka u ah mooyaane intii kale way burburiyeen ciidanku way burburiyeen aqli bay ku burburiyeen iyo calool guriga u adeegsadeen millions of dollars bay ku kharash gareeyeen shakhsiyaad aan amrigoo dollar dhagbaa millions loo dhigay millions oo la burburiyey raxweyn oo laga soo burburiyey halkan marka iyo dhulka waa laga soo burburiyey dadkii joogay goboladan haddii alla ku reeyay abgaalkiiyo jireertu degaanay halkan jawhar iyo balcad iyo dhulka waa soo baabiyey halkan kale ay degaan bolo burje iyo haddii alla ku roon yahay
beledweyne xawaadlaha beendislaha baadicadaha jajeylaha gaaljecesha jareerta maknaa intay degaan kuwana waa la baabi'iyey galmudug oo galguduud iyo mudugoo qayb ah iyana waa taimika lagu dhex jiray ahlu sunna la dhex galay xeef la dhex galay ee billions of dollarska lagu kharash garaynayo diyaarad lacagaa loo keenay wiigii hore oo gadar wadato warkii lagu rusheynaya waddanka ah iyo hubba ah nimankaasi way ka soo hoydeen soomaalidii kale oo way baabi'iyeen oo caqligay kaga ciyaareen waanu sheekaysanaa kuwa u xildhibaanada iyo kuwa saraakiisha u ah ee aan labadaa darawalka ahayn ee aan mareexaanka iyo masheerteenka ahayn mid waliba isagoo maqiiqan buu soo galaya laga soo buuxiyey somalilan war reer dhibal somalilantan kuma lihid adigu annaga alehe gobolkaagii iyo deegaankaagii iyo dadkaagii maye ka dhimanaya maalmalba la dilayo kala qarxinayo ka baaba'aya waa iyaga kuwa waxba ka baabi'i maayaane waxaa ka joogta inta wax maamulaysaa ka joogta meela qarxu ka dhacayo intaana waa la ilaaliyaa waa ajnabi baa ilaaliya iyo quwada ilaaliya shicibka dhimanaya waa koodii dadka baaba'aya waa koodii ma dareensana ma garanayaan indhuhu ma furo nimankaasi way soo baabi'iyeen soomaalidii kale way ka soo hoydeen kuwa badda iibinaya iyo kuwa bariga iibinaya iyo kuwa baasiinka iibinaya iyo kuwa meel walba baabi'iyena waa iyaga horeyso iyo dambayso ama dowladdii hore ha noqoto ama tan ha noqoto tan iminka joogtaa heshiis bay gashay heshiisyay gashay sheel iyo qadar iyo resourceka waddanka baddii baa la iibinaya shidaalkii baa la iibiyey heshiisyaa la galay waa mafia dealers weeyaan milyanis bay qaadanayaan waxna wax ku fangaraynayaan ku baabiinayaan waxna akoonadooda ku dhacaysa cidda quray wax iskaga tiranayaan soomaali waa reer somalilan ee ay garanayaan inay xarkahooda fahmayso ee caqli ay ku tuhunsan yihiin ee ay ragnimo ku tuhunsan yihiin ee aqoon ku tuhunsan yihin waa reer somalilan cid kale wax iskaga tiranayaan ma jirto reer somalilanna waxaa la doonayaa labadaa darawal iyagoo gaadhigoodii soo rakaabiyey inooma soo badheerayaan iyagoo soo rakaabiyey inay kugu karbaashaan soomaalidii kale dagaalkan lagula jiraa imika waa mid dhaqaale iyo mid siyaasi ah ka ku-xigaana waa mid military waxba shalay nagaga qaadi maayo waan ogi madaxweynaha waxaan leeyahay doorashada qabo waa dawadeenna waataynu kaga guulaysanayno cadowgeenna ee kaga naxanayno inagana guushayno ah xisbigii ay hayseene doorashada isku hayseene waddani wuu baaba'ay allah aya raxman raaximiin ugu dhintay haddaanad ogeyn anaa kuu sheegaya cabdilqaadir jirde iyo xirsi waxay ugu wareegayaan inay bakti afuufaan bay doonayaan oo bahalkaa kharaabay ayagoo ay kicistaan cabdiraxmaan baana baabiiyey hoggaankii xisbigaa baabiiyey wuu baabiiyey ninkaas xisbigii maatidii iyo caruurtii iyo dumarkii taageerayaasha uu ahaa ee ololaha isku barteen buu dabagala ayagu taladooda qaata ayaga ay yidhi hadlina aamus annagaa dowladda mucaaradeenna annagaa mataana noqonayna annagaa garxajis noqonayna annagaa jabhad noqonayna annagaa madaxweyneyaal sheeganayna annagaa tallaabo kasta qaadayna oo dowladda mucaarad ku noqonayna mucaaradnimadii bay u qaateen baabiin waa caqli daro mucaaradnimadu waxay ahayd inay dadka kasbadaan oo 42 bay haysteeni inta kalena ku darsadaan dadka kasbadaan oo muwaadininnimo iyo wanaag muujiyaan oo Soomaaliland kala kasbadaan oo ay sukaamiyaan oo ay muuse ka dhigaan nin waddanka garanaysa aanu dib u ridaya ayaguna ay ka dhigaan qaar horumarnaya laakiin waxay tuseen inay waddanka baabiinayaan mucaaradnimadii si qaldan ka fahmeen u baabay markaa u reedi laba goor baan ogaa madaxweynuhu yeedhay xisbiyada mucaaradka doorashada ka bacdi waan ku farxay anugu waan daawanayay cabdiraxmaan waxaan u cadaynayaa dadka inuu carruurtii dumarka daba galee markii uu ka soo baxay baa lala soo hadlay inaa la soo hadlayna dee waxaa cadaynaysa shirshirayd buu qabanaya dumar baa la soo hadlay carruur waryaa cabdiraxmaan xaggee tagtay madaxtooyadii
ويا كوري تقول والله يرى أنت ما لوسي ما بياليسي وصلوا الرنية قياس تقرأ حقنا عن شذوذ شجانته وكسحر ساي هنقولك شجانت واي ولا هورنا إمك شفت فايد قبو أو فهمت الشكل هذا واركي واي يمكن قبنية شفت فايد بو قبنية أنا كسر مقطع وح الله على يوحي لو قلصوا هذلين كده حموقنية إلا سواء عن طول أغلى عن لهين سواء عن نطي عرور تمرك يعني مهم الضمر إسلامه تنتهون لدى أشري عرور تقول إنه يبله هاي الراعي وقال غاليه هاي الراعي المهبل هاي الراعي أنت كانت على قرنية وتنتهون على صوت أي صوتهم تومي أيوه وحي اللي يقول لك هذا لا يسون بصح يا وحي هرو يجو درني صح ذاها أيوه كده بيمنيه وابينيه تلفهم باخد حموقنا شركة ساتشرية ذنب عبد الرحمن deegaanka tulku isku dirayay cirif weyn isagoo jooga iyo isagoo maqan dagaal ku socday kaalintiis wuu gabay institution jira waa dalka jira xisbiyada ogaanka xisbigu tala dalku qayb ka yahay institution kana jiro qayb ka yahay dowladnimadu ka mid yahay wali ninkaas kelmad sadaqaana ku darsan dadkayga waxaan leeyahay xabada joojiya isku mid baatiin walaalaatiin intaas saxta waxtara uu quuray تعسيبه وقوله كي كهول قلي لا وحكا قبل الله نوية لابد يستلي أبوه تركي وولا الذي وكو رهبين مدحونا ونقضه أقول انتي سوات عبد الرحمن نيكا اللي يرى فرماتشو وشيد له ومسيش دريا وحمانو تشيده أيا سو تعسيدي عيلفوين سوون قرنين عيلفوين مالكو تعلبا وحانا سقايدي وعلاني أيو يري سوى مقع قلبية dadka isku dilaya walaalaha iyaga isku dilaya balli afweyn waxaan leeyahay xabada joojiya dhiiga Soomaalida daadanaya sax maaha dhiig islaam weeyaan walaaladeeda balli afweyn isku dilaya magaciibu qalday balli afweyn buliya afweyn ugu jeeda kaas beenta sheegaya ee munaafiqa ah ee gurigiisa maalba la isku dilayo ayaa wax xasuustay balli afweyn amin soo qaldaya Cabdiraxmaan waa ninka aniga garanay وبابا يحسبيش مصبح مدحوين مصبح أو حكوا له قدبون حداد لمرنتو عبد الرحمن وأدور شكم مرنتان هذاك الليت وحارد نقوليشا ننكي هدي قال لك وروني هاي كرتنك قد عرك كصباحي إبهال كمودي إيشدو ولا مرمية واجو بري إيه قد كرتن يوم واحد كمودي بس واحد نقطي بس واحد لون نقطون نكا كرتنك لا مرمية هنقول وطني هو بابا يا هلا مرمي هديك لا دندم waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland oo kale social media Twitterska iyo Facebooka iyo waxaan dambe soo baxay ma aha arrin hawl yar madaxweynayaasha iyo madaxda adduunka maamusha ka Mareykanka ugu horeeyo ayaa fariimaha dhiga waa lagu wada hadlaa waa meel wax la soo gudbiyo ma aha arrin fudud wadankeena qurbo joog asqaysan baa dhibaato ku haysa waxay qorayaan ilaahay yaa buu keenaya haloo sameeyo xafiis tabaqala nimanka waxa sameynaya baasaboorka ajnabiga sitaan daraato markii shaqadu dhacday waxay lahayn ay gaabe ka dhacaysa burcay ka dhacaysa dadkii isku dirayeen culaad bay gelinayeen xumaan bay ka shaqeynayeen wax aqli ku jira maaha haloo fayl gareeyo oo hala ururiyo oo xafiis ururiyo hala sameeyo dawladaha adduunka ee dawladnimada ka qadaynana shuruucdooda way update gareeyeen 6 bilood bashar cusub soo saaraan oo baahi keentay oo mashaakil keenay oo loo baahday shuruucdeedna waxa la isticmaalaya wali ku lixankii waa doqoniimo waa in la update gareeyaan waagi bariiba baahida soo baxda lagu sargooyaa shuruucdeena oo shuruuc la abuuro oo aan la inoo fadhiin meesha oo golayaasha la inoo fadhiin oo xukuumaddu aan inoo fadhiin hadday maanta xukuumaddu ka tagtiyo golayaashu waa inay raad ka tagaan oo ummadda sharciga aad samaysan waa ummaddiina wax u qabatay waxaan leeyahay nimanka afqaysan ee qurbo joogga ee ku kibray masaarifta yar soo gashay qurbaha ka yimaadeen bil aqliga ah xafiis record gareeyo waxay qorayaan u record gareeyaha la sameeyo oo maalintii wadanka yimaadaan ay carruurtoodii naagahooda wata ay yimaadaan hal laga celiyo wadanka ilaa ajnabi hal yaraado waa ka recordkaagi waanu haynaa inaad raali naga hawo ka noqdo dalka aad ka timi cid baa sawirkiisa kaaga dhibaato ku haysa intaas ku filan ana qabateen weeyaan maxkamadda la geyn maayo meel la geyn maayo intaas ku badan abdi ilay qurbo jooga dalkiisa dhisay kaadka sidoo yeeli jiray normal yeela si ka fudud baa la yeeli karaa lagu control karaa oo laga garheli karaa
war waddanka intaad joogtaan dadka dhaxal uga taga oo shuruuc u sameeya lagu kala hago oo ninkan koonfurka yimi horena waanu idhiyayuu waddanka siyaasi ka noqonin oo xisbiyahan ka noqonin taasi wata nimanka meel walba kale cid walba leeleh haddii alla kuu ron yahay somalilan looda leeyahayna ardayga saaqida iyo maxbuuska jeelka gala ee kriminalka gala ayaa marka la qabto idhaahda waa layga hiiliyey iyo cadaalad darray ku dhacday kii kriminalka ahaa ee dadka laayey ee hantida boobay ee markhaatigu ku dhacay la wada arkaya la yaqaana macruufka ah ee caadaystaha baa odhanaya arrin yar baa igu dhacday oo gacan igaga dhacdayoo cadaalad darray igu dhacday mid xun baa igu soo xukumay 15 sannadood waan u sheeganayaa dambigii wuu qaranaya wixii lagu xukumayna wuu ka hadlayaa oo wuu dafiraya ha noqonina kaa somalilan way soo martay marxaladda puntland maanta ku jirto kale ee ergadu madaxweynaha dooranayso ee qabaa'ilka laga keenaya baarlamanka waynu ka soo gudubnay dib loo noqon maayo horaa loo soconaya somalilan kubaddii bannaanka dhigtay xisbiyey furtay nin walba xisbi furaa lagu wuri ururo badanoo fara badan baa furo way kala hadheen oo 3 baa soo haray war ninka lagu wuri urur furo siyaasaddaas ka soo qayb gal dib kubaddii bannaanka loo dhigay xisbiguu ka yimaada madaxweynuhu xisbiguu ka yimaada councilku xisbiguu ka yimaada baarlamanku war somalilan bannaanka dhigtay dowladnimadeedii ninkii tartamayo haad burhaanag baa lagu wuri yaan lagu meerasan waxaan sakaara ka biirsan kale qabiil doonaya wax lagu qaybsado lagu noqon maayo qabiil horaa loo soconaya adaa saaqiday adaa dhacay adaa nasiibkaagu ku riday nin baa teedee sida ragga u shaqayso ama jeegaan cudu doono ama cirka u doono kuwa annaga ah ee habeen iyo maalin la cadaalad darra jirta cadaalad darra ma jirto idinka caqli darra idin haysta laba xisbi baa leeyihiin somalilan 3 xisbi baa jiro laba haysta idinka cadaalad darra iyo haysta oo somalilan cadaalad darra ku hayo xisbiyada laba haysta wareejiya mid oo waliba ka dambe wareejiya laydin sameeyey oo dhulbaanta ku wareejiya haddaa cadaalad doonaysaan kiidana tala isugu yimaado midooba ilaa dadku dowladda idin midaynaysa dowladda rabtana idin midayso xisbiyadii idin midaysay siyaasiyiintiina dee haayo waa rabtaa oo idinkii muuse u dirayay 8 qodob lahaa midnimada garaxis waa muqadas caqligiinu waa kaa somalilan kubadday bannaanka dhigtay bannaankay taallaa ninkii xiniya isku haya siyaasadda hunguri ka hayo dariiqeedii waa lagu tuseeyey soo mar dibna dalka nuu noqon maayo waxaan dardaaran siinayaa inanka yar ee khadar maxamuud guuleed la yidhaah ee ra'iisul wasaare xogeenka waraaba u taaga ka axmar wax badan caawa ku oran maayo haddaad laakiin iga kasbato waan ku oran doonaa mar dambe caawa laakiin waxba ku oran maayo khadarow kuwii kaa horreeyey inaadeer ee kaa waaweynaa ku dhali karayey bidaarkii soo taabteen oo ku hargeysa jooga ismaaciil buuba adigana waa adeerkaana waa adeerkay shalay markuu imanaya dalka Faysal waraab la soo hadlo uu wasta iyo cafis ii raadi isaga dowladda hore cafis uga raadiyo sameeyay adigana waa hubaal cafis dalban doonta waa hubaal hadaynu noolaano ama ana ka wasteyn doona ama mid kale ka wasteyn doona cafiskaaga iska xumayn somalilan adina uma fasaxin wanaagna ugu maqnida wad ku maqan tahay qayrkaayo kaaliita kugu shaqaysanay oo ku diray dalkaadi oo ku shaqaysanay waxa markaa taas inaad wal gulaar ka yahay istaba qabo oo dagaalka ka dhin aad wado waxaad wada ka bax lama huraan waa caws jilaal ka loo soo noqonaya waa kaadu dhalatay waana laga wasteyn doonaa maalin maalmaha ka mid ah wax dhigo waxaan la ku celinayaa somalilan iyo madaxweynaheeda doorashada qabo aday dan ku tahay waxaan aaminsanahay maanta dalkaagu adigoo joogay la itiraafka waxa garab socda dagaal baa garab socda lagu hayo oo dowladnimada lagu hayo oo dalka lagu hayo dagaalkaas wuu socdaa waxa laga dabaalan karaa aqli iyo midnimo iyo si loo wada arko adigana midnimo daabkeeda haya 9 qof iyo 7 qof iyo 10 qof ha u eegin doorashada qabo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu